السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. daawadayaal meel walba aad dunida aad ka joogtaan, halka aad naga daawanaysaan waa youtube-ka iyo facebook Munir Kaskey official channel. aniguna waa isla Munir Kaskey. haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe saar, like-na dheh, siina share garay, asxaabtaadana sii gaarsii. maanta waxaa idin wadaa war farxad leh. warkaasi farxad leh muxuu noqon doonaa? waa isweydiinaysaan. bulsho badan iyo muslimiin badan ayaa ku nool magaalada ama dalka Switzerland. bulshadaasi badan 2024 baarlamaanka Switzerland ayaa fadhiistay, waxayna u fadhiisteen caruurta dhiganaysa iskuulaadka Switzerland oo ay sheegeen ay dood ay ka qaateen in ay niqaabka iska dhigaan ama niqaabka laga dhigayo ama xijaabkana iska dhigaan. doodaasi ma ansixin. kadib sanadkii la soo dhaafay 2024 markay u fadhiisteen qaar ka mid ah baarlamaanka ama Switzerland ayaa ka dooday in ay xijaabka caruurta marada xiran ama madaxa u daboolan in ay iska dhigaan oo ay la mid noqdaan caruurta kale ee dhiganaysa iskuulaadka dalka Switzerland. dood dheer kadib 2025 ee aan ku jirno ee dhamaadka ayaa haddana mar labaad dib loo fadhiistay baarlamaanka Switzerland. kadib markii la wada hadlay oo maxaa la dhihi jiray baarlamaanka Switzerland ay wada fadhiisteen ay wada hadleen, ayaa waxa ay go'aan ku qaateen in wax walba oo dhaqan ama diin ay tahay in aysan ka hor imaan karin, waxna laga bedeli karin, maadaama ay qof intaasoo ummad adduunka ku nool ay yihiin kala diiman. marka maadaama ay sheegeen, waxay yiraahdeen baarlamaanka qaarkood ee dalka Switzerland, haddii ay muslimiinta dhaqankooda ama diintooda ay saan tahay, way xoogaa ma fiicno in dhaqankooda ama diintooda wax laga bedelo. waxaana ansixinaynaa in ay sii wadan karaan ama ay xiran karaan caruurta iskuulaadka dhigata dalka Switzerland xijaabaadka. marka boontiga meeshaan ku jirta waa inaan idinka dawageeyo. boontiga meeshaan ku jirto, maadaama ay dadkii diimaha kala lahaa ay sidaas ay ku doodayaan, muslimiin qaarkoodna caruurtooda iyo ayagoo dad waaweyn oo da ah ay madaxyadooda qaaban yihiin, saraawiil ay ku socdaan, maxaa la dhihi jiray dhar aan xijaabnayn qaarkood ay wataan. dadkii diimaha kala lahayna ay qaarkood ay u heelinayaan xijaabka ama dadka maxaa la dhihi jiray xijaaban, caruurta xijaaban ay u heelinayaan. qiso hadda ka hor waxaa xasuustaa dalka Mareykanka ka dhacday. gabar Suuriyaan ah ayaa jirtay oo dalka Mareykanka deganayd. caruur ay ku dhashay. caruurteeda markay ku dhashay, iskuulka markii la tagay ilaan calaamada meelaha sursuran waqti iskuulka dhexdiisa. iskuulka markii la tago, caruurtii calan kasta meesha suran, muslim ay diin maxaa la dhihi jiray ChatGPT. marka macallimiintii u tagtay maalmaha ka mid ah. macallimiintii waxay ku tiray macallin soo dhawow, waa dhowahay. waxay tiri caruurteeda calaamadan mid ka mid inay arkaan aniga uma ogoli. caruurteeda calamankan mid ka mid ah calaamad ChatGPT meesha suran mid ka mid ah inay arkaan uma ogoli. maxaa ku diiday? may bataata ma ogoli. waxaa la yiri marka anaga calankan dhaqankeeni ma ahan, laakiin reegul waaye calamada inta ku dhagan inay ardayda ay arkaan ay wax ay ka fahmaan. markaas waxay tiri waaya. gabadhii Suuriyaanka way soo baxday, guriga timid, odaygeeda la fadhiisatay, xaajiya waa wada hadleen, way shuurayeen. go'aan waxay ku gaareen marka inay wadankaasi iskaga tagaan. gabadhaas youtuber ahayd, lacag intaas la eegeen ka soo biraysay youtube-ka. isla markii go'aan ay qaateen inay u guuraan wadankoodii oo dagaal ka socdo inay aadaan.
meesha ay haddana iskuulaad iyo dugsiyaal iyo meesha ay niyeysatay inay caruurteeda ka geyso. gabadhi sidee ku baxda. laakiin hadda Switzerland iyo magaalooyinka qaarkood iyo qurbaha qaarkood waxaa arkaysaa in maxaa la dhihi jiray dadkii waaweynaa inaysanba inaysan xijaabnayn. qaarkood sarwaale ay wataan, qaarkood madaxa ay u furan yihiin. intana fiiri, baarlamankan waxay ka doodayaan ayagoon muslim ahayn, waxay ka doodayaan inay sii wataan caruurta yaryar ee madaxa ama xijaabka dharka xijaab wata. dadka waaweyn qaarkoodna waxaa arkaysaa saraawiil inay magaalada ku dhex marayaan. marka warkaasi farxadda leh oo dalka ama baarlamaanka Switzerland ka soo yeeray muslimiin badan oo anaga ka mid nahay ayay aad noogu farxisay, maadaama ay barbaarinta caruurta ay ka bilaabato markay yar yihiin. haddii markay yar yihiin aad ku barbaarisid inay xijaabtaan oo wax bartaan, way ku weynaanayaan maskaxdii iyo jismigii iyo wixii la qabsanay. laakiin haddii aad ku barbaarisid inaysan xijaabanin oo xijaab qaadanin, maxaa la dhihi jiray, yaraantooda aad ku bilaawdo, weynaantoodana way la qabsanayaan. marka maadaama waa farxad waayaan isleeyahay all muslimiinta meel walba joogaan farxad ayay u tahay. Soomaali kaliya maahan, qof walba oo muslim meesha meel walba joogo farxad ayay u tahay in caruurta lagu tarbiyeeyo ayagoo yarna diinta islaamka way wanaagsan tahay. xijaabkan aad u wanaagsan yahay in caruurta lagu tarbiyeeyo. xitaa dadka waaweyn xitaa in loo sheego marmarka qaar la dhaho warsaan diintaada ma ogolo, warsaan saama ah in la dhaho waxa waaye wax isku sheegista ma laha. marka intaas hadalkaas farxadda leh rabo inaan idin la wadaago. haddii aad Facebook-gayga ama YouTube-gayga aad ku cusub tahay, mar kale subscribe saar. siina share garay, asxaabtaada u share garay. 5 ilaa 10 inta awoodid u share garay. laakiin hal mid, haddii aadan dukanin salaada walaal duko. xiliga hadda ay ku taagan tahay, xiliga ku tahayba salaada Ilaahay duko. meel walba aad joogno waxaa noo muhiimsanaan markastana isku sheegaynaa salaada Ilaahay in qof walba muslimna waajib ay ku tahay inuu salaada dukado. intaasaan kastaas yaroo dardaarana idinku darsanaa. hadduu Ilaahay insha Allah muuqaalkan intaas ku soo gabagabeynaya. muuqaal xiga intaan ku kulmi doona hadduu Ilaahay idmo insha Allah. sidaas iyo nabadgelyo.